Assalaamu calaykum. Waan ku salaamay daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawow qaybta labaad ee macluumaadka ku saabsan howlgalkii Mossad iyo hakintii hubka nuclear-ka ee dowladda Iran oo siyaabooyin kala duwan la iskugu dayay in lagu hakiyo. Qaybtii hore waxay noo joogtay markii doogistiisa ay ka soo qayb galeen ilaalada kacaanka ee dowladda, naxashkiisiina ay sideen ciidanka ilaalada kacaanka. Mar dambana waxay sheegeen inuu ku lug lahaa horumarinta nuclear-ka. Waa ninkii Maxamedi ahaa ee 55 sano jirka ahaa ee la dilay markii gaarigiisa qarax lagu xiray. Qaybtii xigtaana waxay ku bilaabanaysaa bishii Janaayo sanadkii 2007 Mossad ayaa Dr. Dashir Hussein waxay ku disheen sun nooca shucaaca ah. war lagu qoray wargeyska Sunday Times oo kasoo baxa dalka Ingiriiska oo ay dhinaca Mareykanka ka soo xigatay ayaa waxaa lagu sheegay in Mossad aysan fulin kareynin howlgalkaasi oo kale oo aysan ka fulin karin gudaha dalka Iran. Laakiin Dr. Hussein waxaa la sheegay inuu u dhintay cabur isaga soo wajahay kadib markii gurigiisa uu gubtay. wax shaqo ahna waxaa la sheegay inuusan ku lahayn mashruuca nuclear-ka ee dowladda Iran. kadibse waxaa la ogaaday inuu ka shaqeynayo saldhig ku yaala Isfahan oo ah duleedka magaalada Tehran oo uranium-ta ceeriinka ah loogu rogo gaas, kadibna gaaskaasi loo adeegsado bacrinta uranium-ka. 2006 Dr. Hussein waxaa la siiyay bilada ugu sareysa ee Iran ee ah sayniska iyo tiknoolajiyadda. 2 sano ka horna waxaa la siiyay bilada ugu sareysa dalka ee baaritaanka iyo horumarinta ciidamada. dilkii saynis yahanadu wuxuu ahaa qayb ka mid ah dagaal weyn oo looga soo horjeeda atomikada Iran oo la rabo in lagu horjoogsado. Mareykanka iyo Israa'iil waxay wadeen howlgal gaar ah oo lagu beegsanayo dadka ka howlgalaya sameynta atomikada iyo burburinta qalabka Iran, mid la soo wado iyo sidoo kale mid yaalaba. Israa'iil waxay sheegtay inay adeegsadeen xeeshii ama xeeladii ay u adeegsadeen Ciraaq 80meeyadii oo ay ka dileen 3 saynis yahan, taasina ay hakad ay gelisay mashruuca atomikada ee Ciraaq. sida muuqatayna dagaalka Mossad ee kula jirta muddo badan ayuu dib u dhigay horumarinta atomikada ee Iran. taasi waxay ahayd in halistii Israa'iil ku soo socotay la baajiyay, balse guulahaasi yaryar ee Israa'iil ay gaartay uma aysan dhigmin ayaan daradii ku dhacday Mossad oo ahayd inay ku guuldareysteen inay ogaa waayeen bilowgii mashruuca nuclear-ka ee Iran oo qarsoodi ahaa. sanado ayay Iran ay ku jirta hawsha sameynta nuclear-ka, Israa'iilna waxba kama aysan ogeyn. Iran waxay qarash garaysay lacag aad u badan, waxay tababartay saynis yahano, waxay dhistay saldhigyo qarsoodi ah oo ay sameysay tijaabooyin culus. intaasina Israa'iil waxba kama aysan ogeyn, mana aysan ogeyn markii ugu horeysay oo Iran ay noqotay awood nuclear ah. waxay adeegsatay dhagar iyo been iyo qorshe degsan oo sirdoonka reer galbeedka iyo Israa'iil ka dhigayay doqomo aan waxba ogeyn. shaahii Iran xukumayay markii uu bilaabay sameynta nuclear-ka 70meeyadii, Israa'iil wax dareena ma gelin, waayo saaxiibo ayay ahaayeen oo dowladda ugu dhow Israa'iil ayay ahayd dowladda Iran. Israa'iil waxay siin jirtay Iran hubka noocyadiisa kala duwan oo ay gantaalo ku jireen, balse kacaankii Iran ayaa dhalan rogay xiriirkii labada dal. dowladdii kacaanku waxay wada xasuuqday dadkii shaah la shaqeynayay, waxayna ka soo horjeesatay Israa'iil. Khomeini wuxuu durbadiiba joojiyay mashruucii nuclear-ka isaga oo leh diinta Islaamka ma qabto, balse dagaalkii Iran iyo Ciraaq markii Ciraaqiyiintu ay adeegsadeen hubka sunta ah ayaa Iran ay baraarugtay oo wadaadadii ay qaadeen cunaqabatayntii ay saareen atomikada bamka iyo farsameyntiisa. wararku tirikuteyna ayaa 80meeyadii fiday oo ahaa in Iran ay awood ay sameysanayso burburkii Sofiyeedka ee sanadkii 1989. Yurub waxaa aad la iskula dhex marayay in Iran ay doonayso inay ka iibsato madaxyo iyo bambaanooyinka nuclear-ka ah. sentiistayaashii iyo saraakiishii ku shaqada waayay burburkii Sofiyeedka, saraakiil iyo saynis yahano Ruushka u dhashay oo guryahooda laga waayayna waxaa loo badiyay in Iran ay howlgelisay. warbixino lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in gawaari xiran oo Yurub ka tagay ay soohdimaha ay ka gudbeen ayna u sii tallaabeen bariga dhexe. warbixinada Tehran laga helayna waxay sheegayeen in Iran ay la gashay heshiis dowladda Ruushka, sidoo kalena heshiis kale ay la gashay Shiinaha si loogu dhiso adeegyo yaryar. Mareykanka Israa'iilna fajac ayay ku noqotay arrintan, waxaana sirdoonnadoodii ay u direen Yurub oo dhan iyada oo la ugaarsanayo bom Sofiyeedka ah oo Iran la doonayo in laga iibiyo iyo saynis yahano la shaqaaleysiiyey, balse gacmo maran ayay la soo noqdeen. Mareykanka cadaadis aad u ballaaran oo badan ayuu saaray dowladaha Ruushka iyo Shiinaha si ay uga noqdaan heshiiskii ay la galeen Iran. Shiinaha waa ay ka baxeen heshiiska, balse Ruushka horey ayuu u sii waday, inkastoo uu daadaahiyay in la dhammaystiro rakibitaankaasi. waxaana ay qaadatay 20 sano, wuxuuna ku xadeysnaa adeegsigu korjoogto Ruush ah iyo caalamka ah inay wax ka maamulaan.
balse Maraykanka iyo Israa'iil warraadiskii iyo baaritaankii ayay sii wadeen markii ay dhowrkii ay ku fashilmeenba. CIA-da iyo Mossad waxay markii dambe ogaadeen in Shiinuhu ay ahaayeen boor isku qaris iyo sidoo kale in indhaha sirdoonka adduunka la iskaga weeciyo, oo Iiraan waxayba bilowday mashruuc qarsoon oo ay ku samaysanaysa awoodda nuclear-ka. sanadkii 1978 shir qarsoodi ayaa lagu qabtay magaalada Dubai ee Imaaraadka Carabta. 8 nin ayaa ku kulmay xafiis yar, 3 Iiraaniyiin ah, 2 Bakistaaniyiin ah iyo 3 Yurub ah oo 2 ay tahay dalka Jarmalka oo Iiraan u shaqaynayay. labadii dhinac ay ka kala socday Iiraan iyo Bakistaan waxay goobta ku kala sixdeen heshiis qarsoodi ah. lacag aad u badanna waxaa loo xawilay Bakistaan, gaar ahaan Cabdulqaadir Khan, madaxa mashruuca nuclear-ka ee Bakistaan. dhowr sano ka hor ayay waxay Bakistaan ay bilowday sameynta iyo horumarinta hubka nuclear-ka si ay barbardhac ula noqdaan Hindiya oo iyadana lahayd hubka nuclear-ka. Dr. Cabdulqaadir si ba'an ayuu ugu baahnaa walaxda muhiimka u ahayd ee sameynta nuclear-ka, balse wuxuu doorbiday in uusan ka sameynin platinum oo laga helo ra'igtaradii hore, waxaana uu doorbiday uranium bacrimisan oo loo soo qodo oo ku jirta 1% uraniumta 235 oo lafdhabar u ah sameynta hubka nuclear-ka. 99% ay tahay uranium 238 oo aan wax faa'iido lahayn. Dr. Khan waxa uu hormariyay hab uu uraniumta dabiiciga ah loogu bedelo gaaskana loo adeegsado xudunta ku xiran qarxiyaha. xuduntaas ayaana markaasi si aanan caadi ahayn u wareejinaysa uraniumtii gaaska ahayd 100,000 oo wareeg daqiiqadii. halkaa inoo joogta qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan xakintii Mossad iyo sameeyshada hubka nuclear-ka ee dowladda Iiraan. saaxiibkay Suldaan Cali Amerika ayaan u mahad celinayaa mar walba oo warbixinadana tarjumay. qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo.